Dr. Xawa Cabdi waxay ahayd Soomaali u ololeynaysa xuquuqda dadka, qareen iyo dhakhtar, waana aasaasaha xarunta caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka iyo weliba hay'adda Dr. Xawa Cabdi Foundation. Sanadkii 2010 waxaa loo magacaabay abaalmarinta Global ee haweenka sanadka. Sidoo kale waxay mar ka mid noqotay dadka loo soo magacaabay abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize. Allaha u naxariistay Dr. Xawa Cabdi Diblaawe ayaa ku geeriyootay magaalada Muqdisho. Waxay ahayd aasaasaha hay'adda ka shaqeysa arrimaha gargaarka. Xawa Cabdi ayaa dhashay 3 carruur ah oo mid ka mid ah u dhintay sanadkii 2005. Waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho 17 bishii May ee sanadkii 1947. Waxbarashadeeda dugsiga hoose waxay ka qaadatay iskuulka Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho, halka dugsiga dhexena ay ka baxday iskuulka Komarshaale. Iskuul dowladda Ruushku ay ka dhistay magaalada Muqdisho ayay sheegtay in wixii inta ka dambeeyay ay ku biirtay, kadibna ay ka heshay deeq waxbarasho ay bixiyeen Midowgii Sofiyeeti oo ku taalay dalka Ukraine, waxayna ku maqnayd muddo 7 sano ah. Waxayna dib ugu laabatay dalka Soomaaliya sanadkii 1972, kadibna waxay shaqo ka bilowday cisbitaalka Digfaar. Guud ahaan xilligaas waxaa dalka ku yaraa haweenka bartay caafimaadka. Dr. Xawa Cabdi waxay si gaar ah ugu takhasustay cudurrada hooyada iyo dhallaanka. Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed qaybteeda caafimaadka ayay sidoo kale ka noqotay bare ama macallimad. Xawa Cabdi oo dhakhtar ahayd muddo 49 sano ah ayaa caafimaadka baratay sanadkii 1971, xilligaas oo ay dalka Soomaaliya ka jirtay dowladdii dhexe. Waxay ka soo shaqeysay xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada Muqdisho, waxayna sheegtay in ardaydii wax soo bartay iyadu ay haatan ka shaqeeyaan deegaanada Soomaalida iyo dalal badan oo caalamka ka mid ah. Sanadkii 2017 waxay ka mid ahayd 10 qof ee jaamacadda Harvard ay siisay shahaadada abaalmarinta ee Doctor of Law. Sanadkii 2015 abaalmarinta horumarinta nabadda ee Pilosio ayay ku guuleysatay, halka sanadkii 2014 Dr. Xawa Cabdi ay heshay biladda xorriyadda ee Resolve 4. abaalmarintan oo lagu siiyay Melbourne ee Netherlands waxaana loogu yeedhaa Freedom from Want. Sanadkii 2012 Xawa Cabdi waxaa loo magacaabay abaalmarinta Nobel Peace Prize, halka isla sanadkaasi 2012 ay heshay abaalmarinta dumarka saameynta leh hay'adda WIT War Foundation. Sidoo kalena ay heshay abaalmarinaha gargaarka bulshada ee BET iyo weliba abaalmarinta cadaaladda ee John Chai. Xawa Cabdi oo howlaha samafalka bulshada ku soo jirtay tan iyo bilowgii dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ayaa waxay xarun caafimaad oo ay ka faa'iideystaan hooyada iyo dhallaanku ka furtay wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo Afgooye. Waxay ka mid ahayd dumarkii u horeeyay ee soo bartay daaweynta cudurrada haweenka ee loo yaqaano gynecologist, waxayna sanadkii 1983 furtay cisbitaal hal qol ka koobnaa si ay ugu caawiso haweenka uurka leh ee Soomaaliyeed. Cisbitaalka waxaan ku bilaabay hal qol anigoo u daneynayay haweenka foosho ay hayso, balse markii dambe waa uu weynaaday oo waxa uu gaadhay ilaa 4 qol oo sariirood, ayay jiray Dr. Xawa oo ku sheegtay waraysi ay BBC-du la yeelatay sanadkii 2013. Markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya sanadkii 1991, xarunteeda waxaa buuxdhaafiyay dad ka cararaya colaadda, kadibna waxay bilowday hay'addeeda DAF si dadka ay u caawiso. Hadda hay'adda DAF waxay ka kooban tahay cisbitaal, iskuul iyo xarunta quudinta. Waxay bixisaa aqoon, daryeel caafimaad iyo hooy, iyo weliba tababaro la siiyo dadka barakacay ee u badan haweenka iyo carruurta. Dadkii ka hadlay geerida Xawa waxaa ka mid ahaa Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sheegay in Dr. Xawa Cabdi lagu xasuusan doono kaalintii ay ka geysatay badbaadada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa nugul. Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa Xawa waxa uu ku tilmaamay daljir dalsoon. Dr. Xawa waxay ahayd samafale bulshada si nafhur leh xilliga adag ugu soo shaqeysay. Waxay tusaale u tahay daljirka dahsoon ee danta guud ka shaqeeya, iyagoo alle oo kaliya abaal iyo ajar ka doona
allaha u naxariisto sabir iyo iimaano allaha ka siiyo eheladii iyo ummadda Soomaaliyeed oo idil ayuu yidhi hogaamiyaha xisbiga wadajir. Xaawo Cabdi xarunteedii caafimaadka waxa ku booqday madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush xilligii ciidamada Mareykanka ay ku sugnaayeen Soomaaliya bilowgii sanadkii 1990kii. Alla naxariistii jannaha ka waraabiye waxay Dr. Xaawo habeennimadii xalay ku geeriyootay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andar, telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 magaalada Hargeysa.